ninka horena kolley waxaan u malinay mudday wada joogeen ogxantii hore inta raadsatay ayay isku shubtay hadhow marka waxaa dhacay ilmihii dhashay waxaa dhashay wiil ninkii ogxantii lahaa aan laga aqoonin haween baa ayada iyo ninkeedii waxay iska qaadeen ogxan bay iska qaadeen qolooyinkii dhakhaatiirta ahaa ee wax qaadahayay baa ka qaaday ayadoo marka ogxantii aanay isticmaalin ayay labadoodii waa isqabteen marka way kala tageen haweenaydii nin kaley guursatay ninkii markii ay guursatay ka bacdi bay ogxantii hadday malaha ninkii inta guursatay xoogaa ay joogeenoo waxba markaas degdega aanay helin ninka horena kolley waxaan u malinay mudday wada joogeen ogxantii hore inta raadsatay ayay isku shubtay hadhow marka waxaa dhacay ilmihii dhashay waxaa dhashay wiil ninkii ogxantii lahaa aan laga aqoonin ayaa dhashay oo midka kan hadda ay guursataan u ekayn meeshaasaa marka waxaa bilaabatay ayadiina waa la ogyaha ogxantii inay isticmaasho masalada marka hadda haddii masalada marka aan fiiriyey markii la eego xagga fiqiga loo bandhigo ilmahaas wakti ahaan haddii la eego labada qof bay ka wada suurtoobi kareen laakiin bacdamaa ogxantaa ay isticmaashay shabahanna marka uu yimid marka waxaan idhi bahalkii ay oran jireen DMA miyay oran jireen magiisii afka qalaad waa layga roon yahay ha loo bandhigayn ilmahaas aduu kolleyba waxaan u malaynayaa inay soo gaartay in loo bandhigo sida ay noqoto ninkii hore uu ilmihii yeeshay haddii marka waxaan idhi sida ay dhacdo ile shareecadu qaa'if bay sheegtaa qaa'ifkiina hadda ma hayno qalabkan hadda la isticmaalaana qaa'if haddii usan ka sii fiicnayn qaa'ifu dad waxay ahaayeen ilaahay hiba rabbaaniya siiyey oo dadka isdhalay soocay ku soo soocahayaan aanu ahayn muuqaalkan caadiga ee hebel hebel buu egyaho annagoo dhan aan wada naqaano ayagoo aan labada qof isku ekayn bay soo saari jireen muxuu ahaa marka waa tii hadda nebiga wakhtigiisa dhacday labadii saxaabiyo maaragtay isdhalay oo usaama ibnu zayd xadiidka qaarkood uu ku yiri ayagoo meel wada hurdo labadana marka nina waa caddaa waa gaabnaa nina waa dheeba adugu waxay u kala baxayeen nin cado nin madow iyo nin cado bacdamaa umu ayman ay dhasho joogii laftigiisa way ku kala duwanaayeen mid baa nebigu arkahayu inta fiiriyo wuxuu yidhi haadihi alaqdaamu bacduhaa min bacdin buy cagahan qaarkood qaarka kale ka ahaayeen marka laba ninoo suurada xaggeeda isaga eg ma ahayn waxa weeye zaydna hadda carab buu ahaa haba la soo addoonsadee usaamana isagaa dhalay laakiin hooyadii waxay etoobiyaan bay ahayd marka nebigu arrintaa marka wuu ku farxay bacdamaa dadka waa taqaanaayo laba hadday inta isdhasho aanay meel la iska shabihin wax unbay dadku soo geliyaanoo waxaa la yidhaahdaa hadde waxunbay iskasii sheegsheegaan ninkastoo ay ogyihiin mar walba ilmuhu ama habar buu raaci karaa ama ab buu raaci karaayo laakiin qofku haddii uu aabbihii u egyahay waa meesha waman yushaabih abah famaa dalama la yidhaahdo ilmaha waxay yidhaahdaan aabbahood u eg habartu waa ku uursantaha la yidhaahdaayo xataa haddii muxuu ahaa wax la sheegsheegi lahaa mararka qaarkood wax lama sheegi maayo marka qaa'ifka meelahaasun baa loo dariisadaa iyadoo hadda nebiga marka xadiid ka soo arooray oo markay culammadu soo qaadaan qisadaasay soo qaadaane ee qaa'if halla cuskada ah laakiin ka raalli ahaanshihiisaasa xukunkaa laga qaatay qalabkan hadda marka soo baxay waa qalab la ogyahay kolleyba wax walba boqolkiiba waa boqol lama oran karo laakiin mid ka dhici kara qaa'ifka ma aha qaa'ifiinta laftigooda inay qaarkood wax qaldi karaan way sheegaan culammada hore laftigooda marka waxaan idhi marka bal ha loo bandhigo bahalkaa waa waxa maanta adduunyada wax lagu baaro aduu masaladaas marka xukunkeedu wuxuu aan u sheegay haddii markii la baaro wiilkaasi ninkii ugxanta lahaa ay isku marka dheecaan noqdaan ilmaha asagu marka inuu yeelanahay oo midka dambe marka aanu yeelanayn taasu marka masalo yahay
haweenayda noocaasana inay sidaas samaysay nimay kala tageen xaginta soo qaadataa wax aan sharciga ku bannaanayn bay ahayd haba yaraatee waxay la mid noqonaysaa sharciyan markii la eego haween la tacaamushay nimaan iyada qabinin inkastoo ilmahaasi ilmo zina aanay noqonayn maxaa yeelay ninkaani manidaa markii laga qaadahayey mani muxtaram ay ahayd ilmahaasi marka waa ilma asaga ku iftirsanaya ma aha ilmo zina ma aha ilmahaas taasi marka mid bay ahayd masale labaad oo iyaduna waddanka kan hadda anugu aan joogo layga soo weydiiye oo maalma la yidhaahdo ayadana waxay ahayd soomaalidu ma ogtahay markay waddamadan soo galeen waxyaala unbay isaga tillaabsanayaan oo intay dadka ku arkeen haween baa inta la baaray baa waxaa la yidhi adiga waxantaadu ma shaqaynayso ninna waa ay leedahay walaasheed bay midhaa weydiisato walaasheed baa waxay tiri waxan baan ku siinaya adugu masaladaas marka hore Soomaaliya loo diray wadaadda ku jiray wadaadadii markay jooga qaarkood baa qoladaa dib iigu soo celiyo yiri walaadka hal la weydiiyo marka nina walaan isnaqaanay oo magaaladu waa magaaladan deganaana maahan maalmo waxaa la yidhaahdaa magaalo madaxda saddexaad oo Sweden wey marka ayadana jawaabkan u dira waxay ahayd in qof inta ugaxanteeda laga qaaday ayada walaasheed oo markaa lagu beero oo markaa ninkii inta u tago meesha ilma ka beermaan horta marka ugu horeeya haweenta ayada muxuu ahaa ilma galeenkeeda wax inuu isticmaalo oo xun uu ku shubto ay u bannaan tahay waa ninkeeda ahayd ma jiro falkaasi marka wuxuu noqonayaa waa fal xaaraama sixaaqii nebigu yacni uu xarimay oo laba haweena inay farjiga ismariyaan oo ay dhici ka dhaxataa mani inay u kala gudubto oo kale ayuu la mid yahay marka ilmahaas in habkaa la isticmaalaa waa hab aan sharcigu ogolayn wey waxa weeye qof haweenay minkeedii ama walaalkeed ha noqdo ama hadduu noqdo walaasheed ha noqotee qof inta waxaan laga qaaday minkeeda isticmaali karaa ma jiro qofka sidaa yeelaa macnihiisu wuxuu ka dhigayo la mid yahay qof u tegay oo kale qofka naagta waxa isticmaali kara minkeeda waa ninka ayada qabo way haddii muxuu ahaa nin qabo haddaan la qabin cid isticmaali karaa ma jiro waxa isticmaali karaa waa markay zawja waxa ay yeelato marka taasi xagga sharciga waa mamnuuc lama ogola